way ka fudud yihiin cirka iyo dhulka oo la waayo inta shay yar oo sharciga ka mid ah la jebin lahaa. nebiyo iyo boqorro badan ayaa damcay inay arkaan waxa idinku aad aragteen oo maanay arkin, ayna maqlaan waxa aad maqasheen oo ma ayan maqlin. maxaanu samaynaa? maxay qoraaladu leeyihiin? sidaad u fasirtaa iyaga? rabbiga ilaahaaga ha kuu jeclow qalbigaaga, naftaada iyo xooggaadoo dhan iyo maskaxdaadoo dhan, oo dariskaagana sida naftaada u jeclow. waad quman tahay, sidan samee oo waad noolan doontaa. kumaa dariskayga ma aha askartan. haysaarse beri baa waxaa jiray nin ka tegay yeruusaalem oo u socday yerixo, oo tuugo ayaa weerartay, oo intay furteen oo dileen ayay isagoo bastiisa ka tageen. waxaa dhacday inuu nin wadaada meeshaasi marayay, oo markii uu ninkii arkay ayuu waddada dhinaca kale ka maray. sidoo kale nin laawiya ayaa waddada soo maray, oo intuu u tegey oo ninkii eegay ayuu waddada dhinaca kale ka maray. laakiin nin reer samaariya oo waddada ku socdaalayay ayaa ka dul yimi, oo markuu arkay isagii ayaa waxaa qalbigiisa ka buuxsamay naxariis. isagu waxa uu u tegay ninkii oo saliid iyo khamri kaga shubay nabarkii oo calaal kaga duubay. kadib xayawaankiisii ayuu saaray oo waxa uu keenay meel makhaayada halkaasoo uu ku dhaqaaleeyey. maalintii xigtay waxa uu siiyey makhaayadlihii 2 diinaar oo waxa uu isagu u sheegay inuu dhaqaaleeyo ninka, oo waxa uu yidhi markaan soo laabto ayaan ku siinayaa wax alliya wixii kaaga baxa.